kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybtii 210aad ee barnaamijka Tubta Nabadda. Toddobaadkan waxaan barnaamijkeena ku eegi doonaa saameynta khilaafka iyo colaaduhu ay ku leeyihiin deegaanka iyo sida ay u sababaan barakaca soo food saari kara dadka ku nool goobaha dhirta laga xaalufiyay. waxa barnaamijkeedna la socodsiin doona Fatxi Maxamed Ahmed iyo anigoo ah Cali Maxamed Guutaale hase yeeshee dhageystayaal inta aynaan guda galin barnaamijkeena bal aan si kooban u eegno saameynta khilaafyada iyo colaaduhu ay ku leeyihiin deegaanka. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka ay saameynta weyn ku yeeshaan colaadaha iyo xaalafka dhirtu taasoo keentay in dhul aad u ballaaran oo ay dhirtu qarin jirtay ay hadda isu bedelaan goobo aan agagaarkoodaba lagu noolaan karin. gobolada saameynta xun ee xaalufinta dhirtu ay ku reebtay ayaa waxaa ka mid ah gobolada Jubbooyinka, Gado iyo Shabeellooyinka kuwaas oo ah gobolada beeraha ugu badan ee dalka Soomaaliya ay ku yaalaan. sidoo kale cimilada sii xumaanaysa ee Soomaaliya ayaa iyaduna waxa ay keentay in sanad walba la arko wabiyada oo qararka jabsada fatahaado soo noqnoqdo oo iyaguna si weyn u saameeyay wabiyada dalkeena. haddaba si aan xog dheeri ah uga helno xaaladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya waxaa noo suura gashay inaan wareysano Ahmed Yusuf Ahmed oo ah agaasimaha waaxda guud ee deegaanka iyo isbedelka cimilada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo aan ugu horreyn weydiinay deegaanka waxa badanaa loo arkaa dhibane dagaal lagu hayay oo aan la ogeyn iyadoo dunidu ay ka fakarayso inay eegto saameynta khilaafaadka ee dadka dhaqaalaha iyo dhismaha iyadoo aan laga fakarin deegaanka. haddaba maxay tahay aragtida Soomaalida ee arrinka ku saabsan? su'aashan waa su'aal u baahan runtii in dadka Soomaaliyeed ay isweydiiyaan deegaanku sida adduunka dhan ba ka jirtaba dhibaato weyn ayaa ka taagan adduunka ayaynu la qabnaa laakiin inaga si gaar ah ayay gaar noogu sii tahay. su'aashan haddaan jawaabteeda ku sheegana fahamka guud ee deegaanka Soomaalida horta waa hooseeyaa waxaa runtii arkaysaa inaan waxba aan la tixgelinayn dhibaato badan ay ka taagan tahay dagaalada iyo dhibaatooyinka dhacaya runtii qaybta deegaanka loo geysanayo oo hadhowda dhibtu ka imaanaysa ayaa ka badan mararka qaar dhibaatooyin kale oo dagaalka directorate ka dhacaya. waxaan Soomaaliya ka mid tahay wadamada ugu hooseeya adduunka marka laga hadlayo dhanka ilaalinta deegaanka. waxaa jira marka xiriir ka dhaxeeya deegaanka iyo isbedelka cimilada iyo amniga sababtoo ah deegaanka marka dhibaato loo geysto ama dhirta la jaro waxa imaanaya climate change ama isbedel cimilo oo for example in roobabkii dii jiray ay yaraadaan ama daadad tiro badan ay yimaadaan kadib markii daadad tiro badan yimaadaan ama abaaro tiro badan ay yimaadaan waxa imaanaya security problem dadka inay isku qabsadaan waxyaabihii resource yaraa ee ku soo haray deegaanka meelaha qaybtood. marka runtii waa fahamka Soomaalida aad buu hooseeyaa. marka maxay tahay saameynta dhaqaale ee ka dhalan karta xaalufinta deegaanka? maasan tahay waa iska caddahay waa keeni karaa hadda markii dhirtii la jaro markii meelihii biyo xireenadaha la wasaqeeyo marka maxaan ku dhahay ii sheeg wax badan oo dhibaato la geysto saameyn dhaqaale inuu iska keenayo iska muuqataa. marka xoolihii waa baaba'ayaan maxaa yeelay abaar baa soo wajahaysa dadkii caafimaad darro ku dhacaysa kadib waxaan noqonaysaa dhaqaale badan oo kaga baxo dhanka caafimaadka. marka waa iska caddahay saameynta ka imaanaysa sababtoo ah innaga waxaan ku xirnaa xoolihii haddii deegaan ay ku noolaadaan ay waayaaniin iyo noolihii kala duwanaa waa dhibaato dhaqaale ugu weyn baa soo wajahaysa. marka waxaad nooga warantaa maxay yihiin qorshayaasha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ku aadan ilaalinta deegaanka iyo maareynta kheyraadka dabiiciga ah si loo helo joogteyn ama waaritaan iyo sinaan deegaan? waa maasan tahay Saalax qorshayaal badan ayaan hadda jira for example dhanka isbedelka cimilada kale haddaan kuu sheego waxaa jira wax la yiraahdo National Adaptation Plan oo ah qorshaha la qabsiga isbedelka cimilada ama dhibaatooyinka deegaanka. wax badan baanu ka shaqeynay. waxaa kaloo jira wax la yiraahdo NDC oo ah isagana qorshe kale oo isagana Soomaaliya ay ku soo bandhigayso sida ula qabsan lahayd dhibaatooyinka imaanaya deegaanka iyo isbedelka cimilada. waxaa kaloo jira charcoal reduction-ka ama in la yareeyo dhuxushii in sida hore aysan ahayn dhuxusha laba qaybood ee Soomaaliya dhibaato ugu haysa. mar waxa weeyaan intii la soo jara ayaa la dhoofiyaa wadamada Carabta iyo wadamo kale loo dhoofiyaa. marna waxaa la sameeyaa dadka ayaa local consumption ka dhigto magaalooyinka ayaa lagu isticmaalaa. marka runtii midda dibadda loo dhoofinayo ayaa dhibaato weyn dalka ku haysay. taasna hadda sida hore way ka yadhahay oo haddaysan la baabinba wax yar baa kusii ii sheeg haray.
taasna waxay ku timi dowladda federaalka iyo maamulada dalka jira iyo hay'adaha iyo bulshada caalamka aan saaxiibka nahay inaan ka wada shaqeynay marka runtii wax badan ayaa kasoo hirgalay waxaa kaloo jira inaan aad uga shaqeynin energy-ga sida in deegaanka intii qiican iyo pollution-kan waxa sida loo yareeyo in energy la isticmaalo for example in korontada kale laga dhaliyo qorraxda ama dabaysha ama biyaha runtii waxaa jira initiatives badan magaalooyin badan hadda solar laga isticmaalaya jira waxaa kaloo jira inaan private sector-ka oo aad ogtahay Soomaaliya dowladdu markay burburtay roolka ay ku leeyihiin iyo rool muuqda inaan hadda aan wada hadallo iyo kulamo la leenahay waxaa jira in private sector runtii ay shaqo qaybtood la taaban karo hadda ay hayaaniin oo ay deegaanka xataa oo mararka qaar commitments ay ka galayaaniin qorshayaal badan ayaa jira waxaa kaloo jira inaan sanadka 2020 aan soo gudbinay siyaasadda isbeddelka cimilada siyaasadda maareynta deegaanka hadda golaha wasiiradan ay nasixiyeen min bisha February baa la ansixiyay in hadda just bill ka hor baa la ansixiyay inta golaha wasiirada cusub la soo dhisin haddana waxaa golaha wasiirada leeyahay xeerka maareynta deegaanka Environmental Management Act oo rabno inaan tallaabo kasta ama wax kasta oo dhibaato deegaanka la xiriira xeerkaas uu maamulo oo degmooyinka lagu tababaro oo maamul goboleedyada loo gudbiyo oo isheeg ciidamo gaar oo ka shaqeeya la sameeyo maxkamada gaar oo for example wasakh haddaad wadooyin ku shubtid ama magaalooyin ku shubtid ama deegaanada kale u geysatid maxay tahay dhibka maxay tahay waxa kugu waajibaya haddii plastics wadanka laga joojiyo la rabaa dadkana maxay tahay wax ku waajibaya dambi deegaan qofka hadduu geysto maxay tahay waxa ka imaanaya waxaa kaloo jira wax la yiraahdo LDN ama Land Declaration Neutrality oo commitment adduunka oo dhan ku wada jiro dowladda Soomaaliya way gudbisay just hadda dhowr bil ka hor I think 3 usbuuc ka hor bay ahayd markaan saxiixnay United Nations Convention on Desertification ayaa lagu daawacay waxa weeyaan commitment-geena ah inaan dhulka baaba'ay Land Declaration ku dhacay aad ku burburaya oo meelaha quruxda badnaa dadku dul xisiga jireen xoolo daaba jireen inaan sanad kasta wuxun aan isheeg dib u habeyn ku sameeyno marka qorshayaal badan ayaa jira shuruucda haddaan dhammaynay dadkii dhinaca aqoonta lahaa aan geej gareynay private sector-ka aan la fariisanay qorshayaal badan oo adduunka ka socdaan aan qayb ka nahay sida NAB NDC dhuxushiina aan yareynay runtii waxaa u muuqataa inaan shaqo badan aan ka qabanay ugu dambeyn maxay tahay kaalinta taageero ee hay'adaha iyo saaxiibada caalamka ee ku saabsan arrinkan mahadsantahay Saalax su'aashaas su'aal muhiim ah weeye runta haddii aan ku sheego taageerada ugu weyn hadda deegaanka Soomaaliya waxa laga helaa qaramada midoobay waana uga mahadcelinaynaa hay'adaha iyo dowladaha aan saaxiibada nahay runtii kharashaadka ay ku bixinayaan iyo siday ugu dhiiriyihiin waxa farxad gaar ah hadda hay'adda adduunka oo dhan uga bilsan environment-ga United Nations Environmental Program inay ay hadda joogto wadanka oo xafiiska UNSOM excellency Adam Mawla xafiiskiisa laga maamulayo runtii taasna waxay ku timi dadaal xafiiska agaaska deegaanka isbeddelka cimilada xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo maxaan ku dhahay ra'iisul wasaaraha iskaashadeen oo hay'ado badan ay la fariistaan warqado badan aan u qornay inaan sheego ay ku timi aad buu u mahadsan yahay kaasina dhageystayaal waxa uu ahaa Ahmed Yusuf Ahmed oo ah agaasimaha waaxda guud ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya walina dhageystayaal waxaan bartanka uga jirnaa qaybtii 210aad ee barnaamijka Tubta Nabadda waxaana wali inoo soo socda qaybihii kale ee barnaamijka hase yeeshee balan markan eegno Christopher Hodder oo ah la taliyaha arrimaha deegaanka ee xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaana ugu horeyn weydiinay si nabad waarta loo gaaro isla markaana loogu guuleysto in si fiican looga faa'iideysto kheyraadka dabiiciga ah iyadoo la ilaalinayo nolol maalmeedka iyo dhowrista dhaqaale ee Soomaaliya haddaba bal sharaxaad naga sii arrintan yes it's generally recognized that durable peace can only be achieved if natural resources are exploited si guud waxaa loo aqoonsan yahay in nabad waarta lagu guuleysan karo oo keli ah haddii kheyraadka dabiiciga ah looga faa'iideysto si lagu ilaalinayo nolol maalmeedka laguna dhowrayo dhaqan dhaqaalaha sidaas darteed si dhab ah ayaynu u arki karnaa cilmi saynis ahaan in tani ay tahay xiriir cad oo u dhaxeeya sida aan u noolnahay iyo muhiimadda nidaamka deegaanka ee aan ku noolnahay haddii aan eegno beeraha iyo cuntooyinka aan cunno wax walba waxa ay sal ku leeyihiin nidaamka deegaanka tusaale Soomaaliya waxa ay leedahay xeebta ugu dheer Afrika waxay leedahay kalluumaysi aad u badan iyo kala duwanaanshaha nidaamka deegaanka isla xeebaha Soomaaliya waxaa laga heli karaa
nooc walba oo kalluun ah. sidaas darteed waa in aan ka taxadarnaa deegaankeenna oo aan isku dheelitirnaa habdhaqankeenna iyo ilaalinta deegaanka. haddii aan eegno dhinaca geedaha, geedo badan ayaa la jaraa, gaar ahaan Jubbaland. dhul badan oo geedo badnaa ayaa hadda noqday goobo cidlo ah oo dhir la'aan ah, iyadoo geedahaas loo jaray si looga dhigo dhuxul. balse hadda waxaan aragnaa in hoos u dhac weyn uu ku yimid 70% jarista geedaha, taasoo astaan wanaagsan ah. marka hadda waxaynu aragnaa in ilaa 2.1 milyan oo qof oo Soomaali ah ay ku barakaceen. ku dhowaad 70% barakacayaashaas waxaa sababay arrimo la xiriira khayraadka dabiiciga ah iyo deegaanka. xilliyadii hore waxay ahaan jirtay colaado, balse hadda barakaca waxaa keena sababo la xiriira arrimo salka ku haya deegaanka. marka muxuu yahay xiriirka ka dhaxeeya deegaanka iyo ka hortagga khilaafaadyada iyo dhismaha nabadda Soomaaliya? So as I was saying, there's a link between sida aan hadda sheegay, waxaa jira xiriir ka dhaxeeya colaadaha, ka hortagooda iyo dhismaha nabadda ee Soomaaliya iyo deegaanka. sababtoo ah kooxaha kala duwan iyo kooxaha hubaysan sida Al-Shabaab waxa ay isticmaalayaan khayraadka dabiiciga ah. waxay canshuur ka qaadayaan arrimo badan sida dhuxusha, sidoo kale biyaha, iyagoo xiraya kanaalada waraabka. waadna ogtahay caddayn buuxda ayaa jirta oo ah in ay u isticmaalayaan ceelasha biyaha iyo ilaha kale ee biyaha laga helo qaab ay wax ku maamulaan deganaansho la'aanta jirta awgeed. marka waxaan u baahannahay waa in aan howlgal nabad ilaalin ahaan iyo qaybaha kale ee aan aqoonsanno in khayraadka dabiiciga ah ay xudun u tahay colaadaha badan ee dalka ka jira. haddii aan eegno colaadaha u dhexeeya qabiilada iyo jufooyinka, khayraadka dabiiciga ah iyo biyaha ayaa aas-aas u ah. ugu dambayn, marka maxay qaramada midoobay samaynaysaa si ay u taageerto dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, bulshada iyo dhalinyarada, gaar ahaan dadaalkooda ku aadan dhismaha nabad waarta? So the UN across the whole country team is supporting the federal government as well as the federal member states. bahda UN-ka guud ahaan dalka waxa ay taageerayaan dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah si loo xoojiyo kobaca aqoon iyo maamul wanaagga. waxaan sidoo kale la shaqaynaa bulshada reer guuraaga ah, haweenka iyo kooxaha dhalinyarada iyo heerarka dowladda federaalka ah si aan isugu dayno xaqiijinta wax badan in ay qabsoomayaan, diiraddana la saarayo deegaanka, taasoo horseedi doonta xasilooni waarta. aad buu u mahadsan yahay. kaasina dhegaystayaal waxa uu ahaa Christopher Hodder oo ah la taliyaha qaramada midoobay ee arrimaha deegaanka Soomaaliya, waxaana uu u waramayay barnaamijka Tubta Nabadda. markana dhegaystayaal waa dhinacii wararka barnaamijka. hay-adaha qaramada midoobay ayaa Soomaaliya ka caawinaya xaqiijinta in dadka Soomaaliyeed ay si weyn uga feejignaadaan halista cudurka COVID-19 kaasoo haatan dunida si weyn ugu soo laba kacleeyay. maaskaraha afka lagu xirto iyo agab kale oo loo isticmaalo ka hortagga cudurrada ayaa loo qaybiyey ardayda iskuulaadka dib ugu laabanaya iyo dadka kale ee caadiga ah. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in si buuxda loo joojiyo gabadfalada ka dhanka ah wariyayaasha iyo dadka la shaqeeya warbaahinta. Guterres ayaa sheegay in qaramada midoobay hay-adaha hoos yimaada ee dadaal weyn ku bixinayaan joojinta wax walba oo lagu waxyeeleynayo xorriyadda warbaahinta. markana dhegaystayaal, annagoo soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena bal aan u weecanno dhinacii maaweelada. aan wada dhegaysanno hees ka hadlaysa muhiimadda ballaaran ee ay leedahay in la ilaaliyo deegaanka islamarkaana laga shaqeeyo horumarintiisa. bulshadu way ku dhowraysaa, ninkii dhaawicii rabow bulshadu way ku dhowraysaa. daliil baad mutaysato dhabbay ku qabanayaa, dhabbay ku qabanayaa.
waa tahay dhegaystayaal intaasina aan uga gudubno heestaasi ka hadlaysay muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanka iyo horumarinta xaaladaha bani'aadanimo waxaana intaas noogu dhammaaday barnaamijkeenii tubta nabadda oo ay maanta mar kale halkan idinkala soo codsiinayeen cali maxamed guutaale iyo anigoo ah Fadxi Maxamed Axmed fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina adinka oo noogu soo hagaajin kara bartaan ku leenahay Facebook oo ciwaankeenuna yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii u dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada adinka oo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan